waxaa lagu naanaysaa boqorkii keynta, geesigii naasleyda, aabbihii duurjoogta. intaasi oo dhan waxaa kulansaday xayawaanka duurjoogta ah ee la yidhaahdo libaax. libaax waxa uu kala baxaa kuwa la rabaayadeeyey iyo sidoo kaleete kuwa duurjoog ah oo aanan la rabaayadaynin, kuna nool kaymaha iyo sidoo kaleete duurka. libaaxa oo ku abtir ah bisadda ayaa waxa ay dadyooga dunida caalamka ka siman yihiin inuu yahay xayawaanka loogu cabsida badan yahay marka ay timaado la kulanka duurjoogta, ayadoo weliba dhadiga ay tahay midda ugu cadowtinimada badan marka loo barbardhigo dhiggeeda labka. waxa uu caado u leeyahay inuu habeenkii yahay mid waxqabad badan maalintii markii loo barbardhigo, inkastoo ay ku xiran tahay hadba meesha uu markaasi ku nool yahay. libaaxa inta badan waxa uu ku nool yahay kaynta cawsleyda ah iyo dhulka fidsan ee geedaha leh. inta badanna waxaa libaaxa laga helaa qaaradaha aasiya, yurub, afrika, iyadoo ay ku adag tahay inuu ku noolaado meelaha aadka u qaqabow ee ka mid ah dunida aynu ku noolnahay. kadib qarniyaal colaadeed oo isaga iyo aadanaha soo dhex martay, libaaxa waxaa la sheegaa in tiradiisa qarnigan hadda aynu ku noolnahay aad ay isu dhimayso. cayn ka mid ah libaaxa oo la yidhaahda Asiatic lions ayaa dowladaha reer aasiya ay walaac ka muujiyeen inuu dabargo'o kadib markii ay badatay ugaarsiga sharci darrada ah ee lagu hayo libaaxaasi. maanta Asiatic lions waxaa la sheegaa in tiradoodu ay kasii yaraanayso 650, kuwaasi oo badankoodu ku nool kaynta ay ilaaliso dowladda Hindiya iyo sidoo kaleete qaybo ka mid ah qaaradda Aasiya. sidoo kaleete midka ku nool qaaradda Afrika ayaa isna la sheegaa in ugaarsi si xowli ah ku socdo lagu hayo, oo weliba meelo ka mid ah qaaradda la sheegaya inay kasoo dabargo'i rabaan. soo dhawow daawade, haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar, mahadsanid. libaaxa oo muuqaal ahaan ah bisad joog leh ayaa astaan ahaan waxaa lagu gartaa madax weyn iyo luga joog gaaban, walow ay ku kala duwan yihiin qaabka dhediga iyo labka. libaaxa labka ah waxa uu astaan u leeyahay xaad ku hareeraysan dhammaan wejiga iyo madaxa, halka dhedigana ay gaar u leedahay xaad yar oo wada siman kuna gadaaman dhammaan jirkeeda. muuqaal ahaan labka ayaa joog dheer marka loo barbardhigo dhiggiisa dhediga, iyadoo labka qaangaarka ah uu dhirir ahaan gaaraya 1.8 mitir ilaa 2.1 mitir oo ah 6 ilaa 7 fiit, halka jooggiisana uu yahay 1.2 mitir. celcelis ahaanna culayskiisu uu gaaraya inta u dhaxaysa 170 ilaa 230 kilogaram. dhediga oo ka laf yar dhiggeeda labka ayaa dhirir ahaan waxaa la sheegaa iyaduna inay gaarayso 1.5 mitir, halka jooggeeduna uu yahay 90 sentimitir ilaa 1.1 mitir. culayskeeduna waxa uu gaaraa 120 ilaa 180 kilogaram. dhogorta libaaxa ayaa la sheegaa inay ku kala duwan yihiin, balse badankoodu waxa ay ka siman yihiin midabka ah brownka. libaaxa waa xayawaan raxan u nool una ugaarsada raxan, iyadoo raxantiiba ay ka kooban tahay inta u dhaxaysa 4 ilaa 30 libaax, laakiin sida badan waxaa la arkaa iyagoo tiro intaasi ka yar ku ugaarsada. meelaha uu libaaxa ka shaabaho aadanaha ayaa ah in raxan walba ay leedahay soohdin u gaar ah oo ay iyada un ka ugaarsato. meelaha ay aadka ugu badan yihiin ayaa waxaa la sheegaa in raxantiiba ay leedahay 20 kilomitir oo square ah, halka meelaha ay ku yar yihiin libaaxyadana raxantii libaax ahba la sheegaa inay ka ugaarsato ilaa 400 oo kilomitir oo square ah. qaar ka mid ah faanyada ama raxanta ayaa lagu yaqaanaa inay isticmaalaan isla dhulkaasi muddo 10 sano ah oo ay ka ugaarsadaan. libaaxyadu waxa ay u dhawaaqaan xaddigooda si ay u ilaashadaan dhulkooda, weliba ayagoo guuxa iyo calaamadaha urka qarmuun bixiya, taasi oo caddaynaysa in halkaasi uu ku nool yahay boqorkii duurjoogta. dhanka kale, libaaxa labka ah ayaa waxaa la sheegaa qoyska uu madaxda u yahay in lagu garanayo mar walba inuu ka dhex dhawaaqo oo qaylidiisa ama ciidiisa laga dhex maqlo raxanta dhulkaasi joogta. libaaxa waxa uu ugaarsan karaa dhammaan duurjoogta ku nool kaynta, walow ay u sii kala fudud yihiin qaabka uu ugaarsado. duurjoogta sida fudud uu u ugaarsan karo waxaa ka mid ah biciidka, sagaarada, eelada, dameer farowga iyo weliba isagoo ugaarsada
dabjoogta ay dhaqaalaystaan aadanaha. Libaaxa ma cuno wax hamba ah ama wax ay soo reebeen xayawaanada kale, isaguna waxa uu ugaarsadaa raashinkii uu cuni lahaa, ayagoo u ugaarsada raxan si ay u qaybsadaan wax walba oo ay helaan. Dhaqan ahaan, markii la fiiriyo libaaxa dheddigga ah, waxa ay nolosheeda la qaybsataa hal libaax ama ugu badnaan 2 libaax oo lab ah. Kuwa kaynta ku nool labadii sanaba hal mar ayay dhalaan, halka kuwa la rabaayadeeyana la sheego inay sanad walba dhalaan. Shinka ama sidka uurka dheddigga libaaxa ah waa 108 maalmood oo u dhiganta 3 bilood iyo 18 maalmood. Halkii marna waxa ay dhashaa celcelis ahaan inta u dhaxaysa 2 cunug ilaa 6 cunug. Ubadka libaaxa marka uu dhasho waxba ma arko, balse maalmo kadib ayay indhaha u furmaan oo uu wax arkaa. Sidoo kale bilooyin ayay ku qaadataa in uu socdo oo weliba uu lugihiisa ku socdo. Celcelis ahaan, kaynta libaaxa ku nool waxa uu noolaan karaa 8 sano ilaa 10 sano inta u dhaxayso, ayadoo culimada sayniska iyo sidoo kaleete kuwa biolojiga ay arrinkaasi u sababeeyeen saameynta ay ku yeelatay weerarada duurjoogta lagu hayo, gaar ahaan libaaxa la ugaarsado. Dhanka kale, libaaxa la rabaayadeeyey ee ku nool kaymaha la ilaaliyo iyo sidoo kaleete meelaha laga soo daawado xayawaanada ayaa la sheegaa in uu noolaan karo inta u dhaxayso 20 sano ilaa 25 sano. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijka aynu uga hadlaynay maxaad ka taqaanaa duurjoog. Tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waa anigoo inkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.